بعد صحافته إسحاق هالكن أنا كوكولني أدبر سلامية وحا أربعين شاقو وشدة كلن كان سيدا أوقتهين وحا مدحوينها سبريد السوالات مدن مسبيها عبدي و صار جدي قصة ربع حساه قيمة 10 سوماليلاند كويم مدوين كم بوا مغليسين وقت بدن با قداس دراسة سمينيسي دراسة هراء السميينا أي كبارن دقيسي انتي وربحينتي سو قاعدة وحي هيد قوان قصاب سنة لبدا الشركة استعمالها لعقت موبايلك استعمالها waxaan soo rabnaa inaanu maanta idin sheegno inuu barnaamij ballaaran ahaa oo aan ku koobnayn labada si ballaaran uu daraasaynayay ama uu dib u eegis ku sameynayay qaabka lacag siyaasadda lacagta saameynta ku leh dhaqaalaheena waxaa ka mid ahaa in la eego sababaha keenay inuu shilinka Somaliland uu hoos u dhaco waxa la isla gartay qodobo doora oo lagu adkeynayo sidii shilinka Somaliland uu qiimihiisa u yeelan lahaa sideedaba ummad waliba lacagta ay leedahay ayay isticmaashaa laakiin waxa inaga inoo gaara lacag kale oo maanta ka isticmaal badan sida muuqataba lacagteennii inay barbar socoto haddii laba lacagiyo ay dhaqaalaha isugu yimaadaan waxaa laga yaabaa mid unda in laga xoog bato waxaanay kaliftay inuu doolarku maanta inuu rogto shilinkeenii oo ka xoog batay sababtuna ay tahay iyadoo isticmaalkii shilinku uu yaraaday wax kastana doolar lagu macaamilayo waxyaabo badan baanu eegnay waxaanu eegnay in maxaan ku dhahdayay la adkeeyo xiriirka hay'adaha dawladda u qaabilsan lacagta iyo maamulisteeda oo uu ka mid yahay banka dhexe oo ay ka mid tahay wasaaradda horumarinta maaliyaddu oo ay ka mid tahay wasaaradda ganacsigu waxa aanu daraasaynay qaababka maanta ka dhaqan gala waxa banka iyo maaliyaddu dhexdooda taalla hawlo badan oo ay u baahan tahay in ay maxaan ku dhahday wadadeeda ama wadada ay lahayd ay qaadsiiyaan oo la isla eegay oo ay ka mid tahay siyaasadda lacagtu iyo maxaan ku dhahdayay sidii bangiga iyo maaliyaddu nidaam lacageed oo ay ka midaysan yihiin loo raaci lahaa waxaa ka mid ah in cashuuraha waxyaabaha aan daruuriyaadka ahayn ama waxyeelaba u leh caafimaadka iyo dhaqaalahaba sidii dib loogu eegi lahaa loona maxaan ku rahdaye korna loogu qaadi lahaa iyadoo la rabo in isticmaalkoodu uu xadidmo waxyaabaha iyo faahfaahintooda waxaa ka geli doona xubno ka mida guddida oo aan doonayo inaan uga baxo waxsaan ummadda u sheegayaa howlahani inay yihiin howlo ballaaran oo soconayo aan ahayn wax mar keliya iyo maalin keliya iyo waqti keliya ku eg laakiin howlo la rabo inay socdaan oo ka mida qaab nololeedka iyo qaabka shaqo ee xukuumadda ka mid ah oo la rabo in nolosha wax lagaga bedelo qaabka lacagtana wax lagaga bedelo iyo isticmaalkeeda dhaqaalahana kor loogu soo qaado waa isbeddel aanu rajaynayno inuu wax weyn ka taro maanta halka uu dhaqaalaheennu uu taagan yahay waxaana saldhig u ah in lacagta ummaddu ay leedahay ay noqoto lacagta lagu macaamilo ee wax lagu kala iibsado ee wax lagu kala beddesho waxaana ummadda la gudboon
inay aaminto lacagteeda dowladda iyo xukuumaddana iyo hay-adaha u xilsaaranna waxaa la gudboon in ay keento wixii ay ummaddu ku aamini lahayd lacagteeda ay ku aamini lahayd iyo siyaasaddii ay ummaddu ay ku aamini lahayd arrinka la wado ee guddidan iyo guddiyo kale oo dhaqaalaha u qaabilsaniba ay wadaan waa taa waxaanu jecel lahay inaanu barnaamijkaas oo ballaadhan oo maanta ka baxsan labadii qodob ee ahayd isticmaalka maxaan ku dhahdaayey lacagaha mobileka ka ballaadhan oo ka faahfaahsan inaanu idinla socodsiino waxaan ku wareejinayaa guddoomiyaha baanka dhexe inuu isaguna inta kala gudboon inuu galo kusoo dhawo guddoomiye waxaan maanta halkan doonaynaa inaan bulshada uga iftiimino go-aamadii ay guddidu ka soo saartay hoos u dhaca qiimaha shilinka iyo sicir bararka maciishada ee waddanka guddidu mudday qaadatay inay soo saarto go-aamada muddadaana waxay ku jirtay inay ururiso xog oo aanu helno xogta dhabta ee la xidhiidha hoos u dhaca shilinka qiimaha shilinka iyo sicir bararka saddex shay baanu markaa isku daynay inaanu diraasayno oonu xal ka helno ka koowaad waxa weeye hoos u dhaca qiimaha shilinka ka labaad waa isticmaal yarida shilinka Somaliland ka saddexaadna waa sicir barar ka dhashay labada muddo kadib guddidu waxa kale ay eegtay diraasaysay wadamada inala mid ah ee xaaladan oo kale ay ka jirto xaaladani waxay ka jirtaa wadamo badan siiba Afrika sida uu sheegayo report ay CNN diyaarisay December 2015 si guud wadamada Afrika oo dhan waxa haysta culays la xiriira lacagta adag ee soo gasha tusaale ahaan oo kale waddanka Zambia oo lacagtiisa la yiraahdo Kwacha labadii sano u dambeeyay 40% baa hoos u dhacay waddanka Ghana oo isna lacagtiisa la yiraahdo Cedi 20% baa hoos u dhacday waddanka Mozambique la yiraahdo oo isna lacagtiisa la yiraahdo Metika 6% baa hoos u dhacday Angola oo ah waddanka labaad ee soo saara shidaalka Afrika marka la eego isna lacagtiisa 40% baa hoos u dhacday marka guddidu iyadoo ka duulaysa xaaladaha Afrika iyo sida loo maareeyo hoos u dhaca lacagta waddanka maxay sameeyaan diraasad badan baan iyadana ku sameeynay marka Afrika la eegayo laba sababood baa weyn oo keena hoos u dhaca lacagta waddanka oo ah waddanku wuxuu dibadda u dirayo markay ay hoos u dhacdo wuxuu dirayaa ama qiimihiisu hoos u dhaco waxa timaada in qiimaha lacagta hoos u dhacdo sidoo kale marka ay badato waxa dibadda uu ka soo dejisanaya iyaduna waxa yimaada in qiimaha lacagta hoos u dhacdo marka waxa weeye saddex shay baa inoo yaala waa wax yaala dawladda oo ayna ilaaliso maaragtay suuqa waa wax yaala ganacsatada iyo shirkadaha gaarka ah ayna isticmaalo wax yaala shacabka oo ay isticmaalaan shilinkooda go'aamadana maaha go'aamo mar kaliya yimid waa go'aamo socon doona laga warhayn doono raadkooda kolba wixii ka soo noqdana la qiimeyn doono waad mahadsantihiin assalaamu calaykum waan isticmaalka hadaan ku noqdo wixii boqol ka sareeya dollar baa lagu isticmaalayaa iyadana waxaan u deynay wixii noo yahay waxaan ku kala qaadano laakiin wixii boqol ka yar ayay tahay shilin in lagu isticmaalo lacag la isugu diro wax lagu kala iibsado sidii caadada ahayd markii hore marka waa inta 100 ka hooseysay weey waxaynu wax ka bedelnay in ka dhignay in shilinka lagu isticmaalo waad mahadsantihiin rahim wax badan ku dari maayo hadalka intii muhiimka waa la yiri inta kale hata ku daray waxa weeyaan inta dhaweyd waxa suuqa socday saadkii ama shirkadihii saadka iyo dahabkii yaa la weeraray weerar ma waxa aan taladu ahayd in waddanka
والعكتيسي فراك بحضي dadkeeniina ay dhaqan u noqotay in lacagta qalaada dollarka ay isticmaalaan qiimo dhac kulka sida ugu yimid ilaahay sabab badan yaa keenay qiimo dhacan wadogtiin xoolaha halkay taagan yihiin wadogtiin lacagtayna soo gashay oo ugu badan tahay maanta inaga soo gashay dadkeena diaspora in iyadoo dariiqa ila Itoobiya qaado sida laajligeed waxa ay noqotay dollarkeeni haduu shilkeeni halka marayo bal sababihiisa in la baaro sababihi waxa noqdeen hadaba kuwa aan si yar oo degdeg oo dhib yar aan guul loo gaari karin iyo kuwa moogtahay si degdeg wax loo qaban karo xoolihii way baxeen suuq raadin wayna sameeynaa way lacagta ugu badan ee moogtahay wadanka soo gashay ee dollarkii waxay ka iman jirtay moogtahay xoolaha wadana had iyo jeer lacagtiisu waxay ku qiimaysan tahay wuxuu dhoofiyo iyo waxa uu soo dhoofsado waxay waqtiga xaadirka mar haddii xoolihii meesha ay ka baxeen nolosheena ay ku dhisan tahay xoogaaga inaga soo gala moogtahay remittanceska dadkeenu ay soo diraan tii nafaanteedii way caranaysaa saadka iyo idahabka wax kale uma aanu target gareyn waxay dhanankii dadku u qabay lacagtoodii astaantoodii ee wadanimadooda ku jirtay ayaa faraha ka baxday waxaan gaadhnay heer aan noqono wadan ka xoroobay lacagtiisii saadka kuwa bixiya iyo kuwa idahabka bixiyo kaliya hata maaha sababta ninkii wax iibinayay isagii baa dollar raba lacagtiisii uu ka soo horjeeda kii wax iibsanayna waxa ku kaliftay markaa inuu dollar isticmaalo marka lama aanu hadlayno kaliya hata kani service ka bixinaya shacabka Somaliland waa inay ogaadaan lacagtoodu inay qiimahooga tahay haddii lacagtoodii ay qiimay waayaan waa astaantii calanka kale la mid tahay sida Cabdiwali uu sheegay marka waxaan ku talinaynaa in dadka Somaliland ay ogaadaan qiimaha iyo sharaftoodu inay ku jirto in lacagtooda isticmaalaan wadamada badan oo waxa jira moogtahay saadka isticmaala laakiin saddex lacagtooda ku isticmaalaan مال دويد وان تجي موقت هاي حتى استعمالك حتى العقانات بابا أن تجني إثيوبيا يا ميلبان موقت حوجا سيرف يسوي دولار بانك بحشيد أرض تقبل يجي موقت هاي بانك سو صرف مركا وين قيمينا نوشينا سيدا أنو نغلي وين قيمينا هذه أدبا محسنتين وزير هذا يو صحافة يو قاسمها جود بانكا يو شغالها كلابا هذه أدبا محسنتين داود يا شباب رنتي وزير هذا يعدمي أو introduction كذي يو هرد كذي يو وحلا لو حلو بانها أردن وزير هذا هرا يا يدي وحنا عنو مركا هكذا كسر شدين دونا إن شاء الله واحد شرتا كله إنه ما دام إنه هيدل أردن أو زمالان كل إقاب كالدولات كعالم كويا لان ومنع الله وهي واحد إنها وطن اعتراف فرادينية وطن عن الاعترافين هذا الدولي عالمي قاعد قاعد بحياة ما هرمرك بدن سمية عن معامل بدن الله هين وحول بنا كحرينيين شروع عالمي قاعد ويا له سادرتي وحن أنت بدن الشعب يهان يدول ذهاب بنفرادنا واعتراف كسومالان سادرتي علامات كاعتراف كأن كل هذين إنه حكم ذا يعني حيالله يملي أنها هي دستورك علنك مدحوينها دولة يلا عقتها يباصها بورك إنه دمان سما السنة كفارنا هذه هبين كوا هدي أن نسيو يغنوا وضن يدينه أي ويغضوا اعتراف مهلينه ويغتان كانوا عاصة سادرتي الشيلين كينو وعلامة سمالام كمدي مواطنين تسنو حقوق فردها إن اعترافان أو أي كل رقمان أو أي كل شقيان كفانا لكن إن كفانا ما أو أي شيلين كودي قيمة اسمه ويان نيك شيلين كيسين بقيمة اسمه ويان اعترافنا رادين معي
taas sidaa darteed waxaan ognahay shilinkeenii in badan ay kula tartamayso lacag dollarization la yidhaahdaa oo kula tartamayo suuqa oo qof kastaaba dollar iyo bir uu raadinayo qof kastaaba uu shilinkii aanu eegayn waxba ku iibsanahayn waxba ku baayacahayn waxba iskaga baayacahayn dollarun inta badan maxaad kaa siinaysaa dollar baan siinaya dollar ma hayso yani waxa weeye dollar inaguna ma lihin shilinkeeni markaa waxa muwaadiniinta wuxuu uga fadhiyaa inuu shilinkii la qiimo geliyo taa iyadoo ay ka duulayso dowladdu madaxweynuhu wuxuu magacaabay guddigan maanta ka tala bixinaysa inay qiimo dhaca shilinka ay ka soo tala bixiyaan inay ka soo saaraan qiimo wax ku ool ah sidii loo dhaqan gelin lahaa guddigu waxay soo saareen 10 qodob 10kaa qodob waxay khuseeyaan qodobo xagga maamulka dawliga ah oo waa qaab dawladda internal u ah qaarna waxay khuseynayeen suuqa ay khuseynayeen kuwa suuqa khuseynayay waxa kamid ahaa ama dawladda qaarkood kamid ahaa dawladda kale in hal account yeelato ayaa kamid ahaa lacagtay soo hesho oo dhan $1 lagu shubo dakhli iyo kharashba kaas markaa waa la hirgeliyay waana lagu dhaqmay oo accountadii kale ee dawladdu ay lahayd way xidhay halka account bay la soo hadhay si ay meel u dakhliyeedii kharashkeeda uga wada baxaan midna waxa weeye qodobka labaad ee ah waa xagga sarifka oo runtii lacagtii si xun looga bacmushtareeyo oo runtii de googa eedaba batay marka banki lagu soo celin waayo ama bangiyadii ay tagi waayaan ama bangiyadiiba ay lacagta ku noqon weydo inay suuqa warta ku noqoto oo suuqii ay taalo sidaa darteedna ay noqoto lacag markaa suuqa taala isla markaana aan suuqii loo fasaxine aan waxba lagu kala iibsanay dollar meeshii lagu buuxiyay taas markaa waxay la isla gartay in shirkadaha waaweyn ee ka ganacsada sarifka in ay ka baxaan oo ay sarifkii u baneeyaan dadka kale bankana lagu soo celiyo taas waa mid shirkadaha waaweyn oo iyaguna ka ganacsan jiray oo ah xeerka hoos imanaya kala xadeynta ganacsatada qodobka labaad ee kale wuxuu ahaa shilinkii maadaama shilinkii Somaliland dalkiisii ciriiri lagu geliyo oo ciriiri ku geliyay dollar ama mid ahaado warqad ahaado ama mid electronic ahaade waxa la isla gartay in shilinkii meel loo sameeyo meesha loo sameeyana waxay noqotay in zaadka oo kale maadaama iyo dahabka iyo labadaas electronic in ay laga saaro 100 wixii ka yar in 100 wixii ka yar laga saaro muddo 45 cisho gudahoodna lagaga saaro 45 cisho muddo loo qabtay wax kala ma aha waxa weeye maadaama dad fara badan oo Somaliland oo shacbi ay meelo badan kala joogaan duruufo gaarana ay kala leeyihiin inuu qof walba lacagtiisii uu muddada ku qaato oo kala baxo ayaa 45 cisho loo siiyay sharaa'iga ku shaqo leeyna ay u diyaar gareeyaan in shacbigaasi ay waxoodiya 100 wixii ka yar ee ay kaga xidhmi karto in iyaguna ay gaarsiiyaan taas markaa waa iyaduna waa 100 wixii ka yar ta kale waxa weeye bangiyada kale in iyagana laga furo ganacsi ahaan in shilinkii laga isticmaalo oo shilinkii la dhiiri geliyo oo development lagu sameeyo horumar lagu sameeyo taas oo ugu horeynaya bangiyada khaaska ay gaarka loo leeyahay iyo bangiga ganacsiga ee dawladdu ay leedahay imika la soo wado isagana in lagu dhawaaqo dhawaan bangiga ganacsiga ee Somaliland oo gaar loo joojiyo oo imika ku dhex jira bangiga dhexe bismillaah go'aanadan horta hore way u soo baxeen qaarkood qaarna imika lagu daray hase yeeshee waqtiga ay soo baxeen iyo waqtiga maanta kuwan ay soo baxeen waa laba kala duwan kuwaas waxay soo baxeen waqti ay doorasho ku jirno oo wixii reer miir qababa ilaa la hadlaba adba sheeg ayay ahayd laakiinse maanta waa dawlad cusub qodobadana sidooda ay u hirgelayaan insha Allah
in kiradii lagu bixiyay shilinka Somaliland in lacagta leerka lagu bixiyay shilinka Somaliland qodobadaas ilaa haatan uma muuqdaan waana qodobadii taageerayay nolosha bulshada miyay la oran karin qodobadaasi waa qaar ka mid meelaysan mise way difaac la xalkeed waa wali leedahay waxaan kala jecelahay su'aal kale ku sii daro بسم الله الرحمن الرحيم aad baad reysan marka waxa weeyaan in hadba wixii isku qorsho ah in waqti iyo meel loogu tago waxaan servicekan lacagta lagu qaadaa ee ama isku dhaqaatiirta tigidhkooda ah ama lacagta dhaqaatiirtuba ay qabtaan ama iskuullada ah ama biilasha kale ah sida kirooyinka iyo laydharka waxa weeyaan waa in isku koox ahoo isku qolaa marka anana ma doonayno inaanu mar ku wada boodno oo aanu nidhaahno waa dugaadhaayo mar keliya ya marka waxaan rabnaa inaanu de waqti kala siino oo la kala nafiso cid walbana sii ogaato ay ka diyaar garowdo laakiin inaanu dadkii mar keliya aanu kusoo wada rogno tallaabooyin aanay ka diyaar garoobin ma rabno qolyahan shirkadahan aanu la kulannay sanadkii horena way socdeen wada hadalladu haddeerna muddaanu wada hadlaynay marka iyagu wax qorshaysan bay ahayd marka qolyahan kalena inaan waqti siino